xafiiska xeelaanta guud ee Puntland wuxuu saxaafadda la wadaagayaa inuu la socodsiiyo in maxkamadda sare dowladda Puntland ay mudeysay garmaqalkii kiiskii Caaisha Elias Aadan ayna xukumanayaal ka ahaayeen Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame, Cabdishakuur Maxamed Dige, Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame. kiiskaas oo ay cabasho u qaateen maxkamadda sare saddexda xukumane waxay mudeysay 17ka bisha 8aad 2019 si kale haddaan u iraahdo Agost 17keeda 2019 sagaalka subaxnimo ee maxkamadda mudeysay in garmaqalkaas ay dhageysato ayna ku dhageysato xarunta maxkamadda sare ee dowladda Puntland ee Garowe. intaas ayaan doonaya saxaafadda in la wadaago mudeyntaas iyada wuxuu ku jiraa process ayuu ku jiraa markuu processkaas baariseed soo dhamaado xafiis xeelaanta soo garan insha Allah taala wadadii qaanuuniga ahayd baanu marinaynaa mana aha kiiskaas kale kiis walbo ciqaabeed oo soo gaara xafiiska xeelaanta oo baarisu soo dhamaato wadada qaanuuniga ma jirta kiisas aanu qarinay iyo kiisas aynu hakinay ma jiraan. dadka caadaystay kufsiga dhalinyarada caadaystay kufsiga yaan u digaya waliba kuwa dilka geysta warheedha lacag idinka saari mayso qabiil idinka saari maayo aftahanimo ka saari mayso maanta kiiskaad gashid ciqaabtiisu 10 ilaa iyo dil ayuu u dhaxaya waliba waxaan idin sheegayaa in hay'adaha baarista Puntland ay ku soo biirtay hay'ad science ah isbaarmahaagii baa la qaadaya gabadha ku shubtay isbaarmihii aad ku shubtay waa la qaadaya markay isla falgalaan aabba ka saari maayo hooyana ka saari mayso ciqaab dil aad ku mutaysanaysa ka waantooba kufsiga hadaa ka waantooba weydaan cid idinka saaraysa ma ilaah baa wax dila laakiin qaanuunka iyo shariicadu dil bay idinku xukumay waalidka waxaanu sheegayaa cishada caruurteena hadaa cishan weydaan ha ka daba imaanina